xildhibaanada maxamuud xaaji cilmi dable iyo xildhibaan saciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Saaxil ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shaqaaqa ay sameeyeen shaqaalaha ka howlgala marsada berbera kuwaas oo ka cabanaya tacadiye ay ka tirsanayaan shirkadda DP World oo la wareegtay maamulka dekedaasi haddaba shir jireed oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxa ay xukuumadda talada haysaa ugu baaqeen in la safato dadkeeda isla markaana ay soo dhiciso xaqqa maqan inamada kacdoonka sameeyay waanu ayideynaa xuquuqdoodii baa ka maqan anagu gardarro ku ayidi mayno xaq darrana ku ayidi mayno inay wax baabi'iyaan ku ayidi mayno laakiin waxaan ku ayideynaa xuquuqdooda maqan in la siiyo oo si cadaalad loo eego inuu masruq ilaa inta ya kalb ma qaadanayno imshi bisurca dhaqso u soco sigaar cabin waa maxay ka baahan halkashantahay anagu waxaan la soconaa oo nu ayideynaa wax allaale wixii Soomaaliland nidaam iyo hagaag u soconayo dekada lacagteeda waa la qaadaa dad baa loogu shubaa sicir bararka iyada ka mas'uula lacagtii Soomaaliya la qaaday baa suuqa la tagay doolar baa la bedeshaa qaadkaynu masabidnaa tana ka daran maanta weligeena sicir bararkaasi jabi maayo waanu ayidsanahay kacdoonka iyo gadoodka shacbiga reer berbera anagoo kaga wakiila ummadda reer berbera kaga wakiila waanu taageersanaynaa horta in wax leena xabsiyo Soomaaliland wax leena xabsiyo waxa idin daliila horta day waata madaxtooyadeeni way guurtay xamar baa laga xukumaa heshiiskan Dubai laftiisana xamar baa laga saxeexay hadda balagad inagu waa dilaynay qoladeen madaxdaadu markay iyadu madax mustaqila to madax banaan ayay iyaduna wax qaadataa dadkana wax u reebtaa markay sa dilaalin tahay oo dalkale wixii qaadanayo intii yareedo shacbigu qaadan lahaa bay deeyo qaadanayaan shacbigu waxba uma reebayaan marka horta taynagu dhacdo waa taa saddex dilaal bay nagu dhacay berbera marka waxba uma yahay shacbigu waxba uma yahay tayna qabsatay taawi maanta ay xaqiiqadii timi milyan iyo 500 berbera jooga sarifkiina 8 uu marayo maanta mama yusuxu ku cabamso ku noolaada markay yiraahdeen waanada dad sidaas heshiiskeedii ma ahna wuxuu yiri aniga xukuumaddiini baa igu amartay sidaa la jaadan unaaye Home Cable TV Hargeysa.